gobolkii ugu waa wadankii ugu horeeyay ee Puntland ما Soomaaliya Puntland كبح تاريخ أنا أقول Puntland ما هذا الحين Puntland كبح وحدي هانا يعني يجا وحده إسرائيل Puntland يخافون يجا إسرائيل Puntland يخافون يجا إسرائيل ما قرأت أفرود ولا لا إسكال حاجة دي واحد دي براش قصة أو كل حساب سنة يسير أنا أقول دارود بالله سمعتهاي دارود بالله سمعتهاي حدنا كم كلا أقان قف يا قبيلة كم كلا أقانو ما قرأت دول أرلي بحينا dhulkayga ma joogtay hadaad joogtida dhulka ila leedahay balaashaanood gudaheeda orkaale oo adoo xor ah igu imo deegaan aan ku leeyahay adoo xor oo socdo oo nool oo indhaye lagu aad ku socotaa ku yaalaan adiga aniga dhulay nagama dhixeeyo dadlay nagama dhixeeyo magacana nagama dhixeeyo ma fahamtay magacaad adigu leedahay adigu qof noolaan kara hadaad tahayna adoo idooro yiraahdo noolo meel samayso oo meel ka muuqdo maxaa kugu nabay dadkan ma kastuumadooda tahay qabiilada dadaadan la jinsiyada hayno afka Soomaaliga idin ka dhaxeeyo maxaa ku daba dhigay oo kugu damanimo kaliya baa noolaan karin miya ma kaliya baa noolaan karin anigu anoo harti oo qabiiladii daarood baan kaliya noolahay aan buurlaanahay ma baati noolo ma naqaanayna daa أروح مرة أنا بلا مرة مدينة هلا مرة هاي أديك الدوات هاي يقول هذا أنا ما أقول هلا هنا موت كذا كم هذا يقول هذا هاي يقول هنا موت إذا نكسر قاسم بميش أقول كذا أنا بدي هذا مرة naagtani waa garxajis iyadaaba u way sababtay idoor bay taana daarood baan xisaabaan aniga iyada maxaa iska kaya galay may noolaad iyadoo idoor ana daarood aan noolahay ana daarood adigu meesha listen inaadeer naagtani waa garxajis calaamada u saaran bagaranaya inaadeer naagtan adigu meesha joogto horta wax ka cunde bal hal mar adigu wax ka cunde waa adigu ku dul bahane taada ka hadli toodii baa silacay xariir haystaa maxay taada ka hadlaysaa yadi waa gaajo u baqtiyayso wuxuu weyday inaadeer maxay adiga kaaga saa u faaniyada waa gaajoonaysa soo dhawaada taas waa naagtii suldaankeedu lahaa ma kaftami karo ma hadli karo yaray walaad ilma maanta waxay soo kireysteen ma taqaanaa nin xanuunsanayo oo yar oo aan hadli karin oo naqasku ku dhegsan yahay oo aan ugu caawin jirin intaan qololka yakeeno lacagta u tirtirnay ma garanaysan aan hadli karin oo TikTok jooga kiiba yiraahdeen garaad jaamac ogaaday inay dadkan dad wada xanuunsan oo qabiil dilooda yahay dabadna waxa lagu yiri qof walba gurigaaga calan ka taago oo maamul galabeed samayso gaalaana u soo destay sharciga wad ogtihiin sidii baana lagu dhaqaaqay qof walba gurigiisii buu fariistay hubbu loo fariistay in aniguna kayga aan fariisto dhamaatay anigu dhulaan leeyahay maanta way og yihiin edab darro iyo ma aragtay is adkays iyo ceebdiid bay meesha u fadhiyaan ma garatay ee way og yihiin inaanay ku soo noqonayn sool inta qof laba jir ama hal sano jira iga nool yahay inaanay cagaha soo dhigaynin mar dambe oonay ka talin doonin oonay dhex mari doonin way og yihiin ma garatay shalay anaa keenay maantana anaa xabad dabada ka geliyay maxaa laga qaadi karaa inaadeer waxa weeye dhulkayga anaa le maamul goboleed iyo meeshaan doon hadaan doono maamul goboleed iyo waxba toona ka dhigamaya intaan albaabada xidhan geel ku daaqsanaya iyo fardahayga iyo waxayga iyo arigayga ku daaqsanaya ma garatay Soomaaliya oo dhan baa inaad iska cadiban nin walbana gurigiisa buu fadhiyaa anigana gurigayga anaa le dhulkaygii baa laygu haystaa oo laygu soo leeyahay dhulkaagan qaadanaya nimankanu inaanay dawlad noqonayn oo waxaanay wataan cagaarkan iyo waxaanay isku soo walaaqdeen inaanu adduunka meel laga taagin way ogyihiin laakiin inaadeer waxay wadaan wax kale weeyaan ma garatay cuqdad iyo argoosi iyo cirdi baa ku jira ma garatay nacayb baa ku jira dad dawlad wax ka yaqaanana ma aha hadaad maqashay wax Soomaaliland la yiraahdana madaxoodu waa isaaq madaxoodu waa asnab luguhooduna waa isaaq ma garatay iyagaana leh marka calankoodan iyagu meesha ay doontaan la dhul bay leeyihiin ama ha ka taagtaan ama ha iska daayaan kuma haysto laakiin dhulkayga anaa leh waanan u diiday mana soo galayaan ma garatay naadeer waana idinka baxay hadalkay ku socdo waa mahadsantahay sidaas oo kale turxaan la'aan adigoo ay tamisaas soo baxa qofka ma hadli karaa